السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيلفيا رومانو markii hore magacaas ayaa loo yaqaanay. Waa 25 jir Talyaani ah. Taariikhdu markii ahayd 20 November 2018 waxa ay ku sugnayd tuulo lagu magacaabo Shakama, deegaanka Kilifi, gudaha Kenya, dhinaca koonfurta. Waxay u shaqeynaysay hay'ad samafal oo lagu magacaabo Africa Mille. Waxay deganayd hotel yar. Hotelka iyadoo degan waxaa soo weeraray rag hubeysan kuwaas oo ka tirsanaa Al-Shabaab qaybtooda Kenya. Waxay afduubnayd 18 bilood. Waxay tiri safarka meesha laga soo afduubay ilaa meesha loo waday waxay ahayd bil dhammaystiran. Dhul hawd ah ayay ku socdeen. Waxay kaloo sheegtay inay wateen mootooyin, mid ka mid ah ay ka kharaabtay ayna isaga tageen. 9 maalmood ee ugu horreeyay dhulka hawdka ah ee Kenya ayay ku socdeen ayagoo ka baqay in la soo weeraro. Markii aan Soomaaliya nimaanay waxay i dejiyeen qol mugdi ah. Waxaan kala kulmay nolol ciriiri ah taas oo igu kaliftay inaan habeenkii seexan waayo marmarka qaar. Waxay si cad u sheegtay in aysan jirkeeda taabanin raggaasi, garaacin, jirdilna aysan u geysan. Kaliya waxay sheegtay in ay marmar arki jirtay niman afduuban oo soo gala qolka ay joogto kuna hadla luuqad aanay fahmayn. Waxay sheegtay inay ka codsatay inay siiyaan buug ay wax ku qorto si ay ula socoto maalmaha iyo taariikhda isbedelaya. Wayna siiyeen. Warbixino ayaa sheegay in lagu qasbay inay guursato nin ka mid ah raggii afduubay, laakiin Sylvia ama Aisha arrintaasi waa ay beenisay. Waxa ayna ku tilmaantay arrin aysan waxba ka jirin. Wargeyska Corriere ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu sheegay in Sylvia ama Aisha ay ogaatay in ragga afduubtay ay haystaan diinta Islaamka. Waxayna ka codsatay inay wax ka tusiyaan diinta ay haystaan ee Islaamka. Waxay u keeneen kitaab Quraan ah. Waxaa loo badinayaa in sababtaasi ay ku islaamtay Aisha ama Sylvia. Waxay sheegtay in markii ay akhrisay kitaabka ay iyadu nafsadeeda u jeclaatay kuna qanacday diinta Islaamka, sidaasna ay ku gashay. Waxay tiri waxaan maqlayay aadaanka salaada dhowr jeer maalintii. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا Waxay sheegtay Sylvia inay aad uga heli jirtay sawdka aadaanka ay maqlayso maalintii dhowr jeer. Sida ay sheegayaan wargeysyada qaar, haddii lagu qasbay diinta Islaamka marka ay ka soo tagtay, ragga ku qasbay waxa ay iska saari lahayd xijaabka, waxa ayna ku laaban lahayd diinteedii hore ee ay haysatay. Laakiin maadaama iyada oo Talyaaniga joogta
ay weli ku faanayso xijaabka ayna qabto, waxay u badan tahay inaan lagu qasbin diinta Islaamka. Haddiiba ay ahaan lahayd run in lagu qasbay diinta Islaamka, waxa ay ka bixi lahayd marka ay dalkeeda tagto ama ay safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya ay joogtay. Waxaan kaloo ognahay ujeedka ugu weyn ee afduubka gabadhan loo afduubtay waa in lacag looga helo afduubkeeda, sida ay sameeyaan Daacishta waaweyn ee Suuriya ama ka dagaalama wadamada Islaamka. Maadaama ay tahay muhiimadda ugu weyn in laga helo lacag ama kharash, muhiimad ma ahan in lagu qasbo diinta Islaamka, taasna ma ahayn ujeedada loo afduubtay. Qaabka loo soo daayay waxaa ka soo baxaya arrimo kala duwan. Dad badan ayaa sheegaya in sirdoonka Turkiga uu qayb lixaad leh ka qaatay sidii loo soo dayn lahaa, uuna weerar ku qaaday barta lagu hayay oo u jirtay 30 kiiloomitir Muqdisho. Laakiin ilo kale oo Talyaaniga ah waxa ay sheegayaan in lagu sii daayay waan ay hormuud ka ahaayeen sirdoonka Turkiga. Haddaba, sida ugu badan ee ugu macquulsan, dad badanna ay aaminsan yihiin waxay tahay in si iskeed ah loo sii daayay maadaama ay islaamtay. Laakiin haddana waxaa jirta lacag ay sheegtay dowladda Talyaaniga in ay ku sii daysay gabadhan, inkasta oo markii dambe ay haddana dowladdu sheegtay in howlgal lagu sii daayay ee aan laga qaadin wax lacag ah. Sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxaa isna lagu sheegay warbixin ka soo baxday in howlgal meel 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho lagu soo daayay Silvia, kuwaas oo ay qaadeen dowladda Soomaaliya iyo sirdoonka Turkiga. Ma jirto wax ka soo baxay qolooyinkii haystay gabadhan oo ah inay ku sii daayeen madax furasho ama inay ku sii daayeen si iskeed ah ama in weerar looga qaaday. Laakiin waxay u badan tahay in si iskeed ah loo sii daayay. Haddii uu jiri lahaa weerar ama howlgal lagu sii daayay, waan maqli lahayn ama waan dareemi lahayn, waxaana ku arki lahayn wargeysyada caalamka. Maadaama aan lagu maqlin howlgal wargeysyada caalamka ama aan lagu sheegin, waxaa halkaa ku cad in gabadhan lagu sii daayay waan ama in loo sii daayay si iskeed ah. Dowladda Talyaanigu waxa ay gabadhan duldhigeen ciidan fara badan guriga ay ku sugan tahay, taas oo loogu talagalay inay ka ilaaliyaan weerar looga baqayo in lagu soo qaado gabadhan. Maadaama ay jiraan dad badan oo u badan siyaasiyiin dalka Talyaaniga ah ay sheegeen in ay weerari doonaan ama ay sheegeen in gabadhan ay tahay xagjir cusub, taas oo loo soo diray in ay beddesho dadka ku sugan dalka Talyaaniga. Laakiin dowladdu ayada oo difaacaysa gabadhan waxa ay duldhigeen ciidan ilaaliyo. Si kasta ha ahaatee, haddana waxaa jira rag siyaasiyiin ama xildhibaano ah kuwaas oo ku hanjabay in ay gabadhan u geysan doonaan dil, maadaama ay faafinayso arrin xagjir cusub ay ku tilmaameen. Wakaaladda wararka ee ANSA waxaa lagu sheegay in Silvia ay la kulantay xaaladii ugu xumayd abid, haddana aysan ka laaban go'aankeeda. Ma sugi karin inta aan ka degayay diyaaradda, sababtoo ah waxaan aad ugu xiisay dhulkayga. Waxaan jeclaa inaan la kulmo dadkayga aan aadka u jeclahay, iyadoo aan la eegaynin dharka aan xirnahay, ayay tiri Silvia. Alessandro Bagano oo ah mudane baarlamaanka u matala xisbiga qaxootiga neceb ayaa la cambaareeyay kadib markuu soo hadal qaaday Silvia Romano. Bagano hadalkiisu wuxuu u muuqday mid uu ku jiro nacayb la xiriira ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda, arrinka cusub ee ay ku salaameen Silvia Romano, isagoo sheegay in la diiday in la furo kaniisadaha, laakiin garoonka lagu soo dhoweynayo argagixiso cusub.
laakiin siyahayaha guddoonka baarlamaanka ayaa ka joojiyey hadalka isagoo sheegay in golahan dhexdiisa uusan ku adeegsan karin ereyga argagixiso cusub.